kabsal ayaa si tartiib ah ugu soo degay saxaraha Utah maanta kadib safar sannado badan qaatay oo meel bannaan ah. shixnadeedu waa ururin qaali ah oo dhagaxyo iyo boodh ah oo laga soo ururiyey asteroidka Bennu. waa markii ugu horreysay ee NASA ay dib ugu soo celiso dhulka qaybo ka mid ah shayga samada. maalmaha soo socda NASA waxay u duuli doontaa qaybta Bennu ee xarunta Johnson Space Center ee Houston, Texas. halka kormeerayaashu waxay si taxadar leh u kala furfuri doonaan weelka, waxayna bilaabi doonaan falanqaynta kimistari iyo macdanta shaybaarada saafiga ah, kuwaas oo laga yaabo inay hayaan tilmaamo ku saabsan asalka nidaamka qorraxda. waxaan dareemayaa sida ilmo habeenkii Kirismaska oo aad ugu faraxsan inuu seexdo, ayay tiri Michelle Thompson, saynisyahan meerayaasha ah oo ka tirsan jaamacadda Purdue ee galbeedka Lafayette, Indiana, iyo xubin ka mid ah kooxda muuqaal degdeg ah oo yeelan doona fursadda ugu horreysa ee lagu barto dhagaxyada meel bannaan. maaddadu waxay ka timid ushal 2 bilyan oo Osiris Rex, asal ahaan fasiraadda spectral, aqoonsiga khayraadka, amniga Regolith Explorer, howlgalka kaas oo bilaabay 2-16 oo yimid Bennu 2-18. waxay ku qaadatay ku dhowaad 2 sano inay barato midabka madow asteroid dheeman u qaabaysan ka hor inta aanay cududeeda robot-ka ah u fidin dusha dhagaxa, iyada oo ku qarxinaysa barar gaas ah oo ururinaysa siigadii iyo dhagxaantii ay laaday. feerka ayaa kor u qaaday walxo aad u badan oo qaybo ka mid ah dhagaxyada ay ku xayirmeen habka ururinta, taas oo u oggolaanaysa qaar ka mid ah dhagaxyada yaryar inay baxsadaan. daawashada qaar ka mid ah shaybaaradaas oo ka baxsanaya waxay ahayd wadnaha jebin, ayay tiri Dante Lauretta, saynisyahan meere ah oo ka tirsan jaamacadda Arizona ee Tucson, oo ahaa baaraha maamulaha ugu horreeya ee howlgalka Osiris Rex. sawirro taxane ah oo firfircoon markii dayax gacmeedka NASA uu dib uga noqday dusha sare ee asteroid Bennu kadib markii uu hoos taabtay. Osiris Rex ayaa qaaday sawirradan taxanaha ah sannadka 2020 oo muujinaya dhagax iyo boodh ka soo buufiyey oogada Bennu kadib markii gacanta robot-ka ee dayax gacmeedku ku qarxiyey asteroid-gaas dhibcaha NASA Goddard Univ Arizona. weli dayax gacmeedku waxa uu ku guulaystay in uu ururiyo ilaa 25 garaam oo dhagxaan iyo wasakh ah, koob weyn oo ay ku jiraan dhowr jajab oo dherarkoodu yahay ugu yaraan 1 sentimitir. ilaa hadda waa qadarkii ugu badnaa ee walaxda laga soo celiyo asteroidka. wakaaladda sahaminta hawada sare ee Japan, JAXA, ayaa hore wax ka yar 1 miligaraam ka soo ururisay asteroid Itokawa sannadkii 2-4 garaam oo asteroidka Ryugu sannadka 2-19. soo celinta shaybaarada meeraha dhulka dib loogu soo celiyo waxay u oggolaanaysaa cilmi-baarayaasha inay adeegsadaan farsamooyin shaybaar goyn si ay u daraaseeyaan waxa dhagaxyadu ka samaysan yihiin. kooxda daaweynta ee NASA waxay qorsheeyeen inay shaybaarada Bennu geliyaan jawi ah nitrogen saafi ah isla markiiba kadib marka kaabsalku hoos u dhaco si loo yareeyo suurtagalnimada wasakhaynta. taasi waxay awood u siinaysaa saynisyahanada inay bartaan cilmiga dhulka iyo kimistariga asteroidka oo la ilaashaday ilaa iyo dib u samaynta nidaamka qorraxda in ka badan 4-5 bilyan oo sano ka hor. walaxda saafiga ah laguma beddelin marka la dhex maro jawiga dhulka sida ku dhacda meteorites. waxaa dhab ahaantii ka duwanaan doona muunaddan ayaa ah inaan haysano silsiladda ilaalinta si looga ilaaliyo jawiga dhulka, ayuu yidhi Nicole Luning oo ah kormeeraha muunada howlgalka ee xarunta Johnson Space Center. xamuulka qaaliga ah Bennu waa asteroidka kaarboonka hodanka ah, sidaas darteed shaybaaradu waxay u ekaan karaan meteoritiska hodanka ah ee kaarboon ee ku dhacay dhulka, ayuu yidhi Thompson. qaybaha ay soo aruurisay Osiris Rex waxay u badan tahay inay ku jiraan xeryahooda dabiiciga ah, moleculeska kaarboon ku salaysan ee laga helo saadaasha hawada badan oo ah blocks-ka dhismooyinka noocyo badan oo kimistari ah oo xiiso leh oo ay ku jiraan kuwa nolosha ku habboon. Daniel Griffin oo ah saynisyahanka sare ee muunada dib ugu soo noqoshada NASA Goddard Space Flight Center ee Greenbelt, Maryland, ayaa yidhi waxa aan ka helo kuwa ugu xiisaha badan waa nucleobasis, qaybaha koodhka hiddaha ee ka kooban dhammaan nolosha dana iyo RNA. isku dhisyadan waxaa laga helay saadaasha hawada hore, laakiin dhagaxyadaasi may ahayn kuwo saafi ah sida shaybaarada Bennu la filayo inay noqdaan. waan ku kalsoonaan karnaa natiijooyinka sababtoo ah alaabtani waa nadiif, ayuu yidhi. xirfadlayaasha NASA waxay ka shaqayn doonaan sidii ay u furi lahaayeen oo u baran lahaayeen boodhka iyo qururux gudaha weelka kaydinta Osiris Rex toddobaadyada soo socda.
isticmaalka sanduuqyada galoofyada ee nitrogen ka buuxo. Farsamayaqaanadu waxay ku baari doonaan muunadaha iskaanka iyo qalabyada kale si ay u ogaadaan inta nooc ee dhagaxyada ah ee la ururiyey, waxayna diiwaangelin doonaan midabka muunada, mugga iyo